cabdiqaadir firdhiye hogaamiyaha maamulka waqooyi bari ayaa la soo warinayaa inuu bixiyey amar dagaal oo degdega kaasi oo la sheegay inuu hadda si toos ugu socdo saraakiisha ciidanka maamulka waqooyi bari. firdhiye wuxuu amar ku bixiyey in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo ciidanka Somaliland ee ku dhuumaalaysanaya gobolka Sanaag gaar ahaan aaga magaalada Ceergaabo. daqiiqad walba waxaa laga cabsi qabaa in Ceergaabo ay gasho marxalad kale oo dagaal iyada oo saacadda ka dambeysana la filan karo dagaal weyn oo halkaasi ka dhaca. xubno saraakiil qaarkood oo aan la hadalnay si aan wax uga weydiino dhacdooyinada hadda soo ifbaxaya qaarkood waxay inoo sheegeen in dhowrkii saac ee la soo dhaafay la dareemay culeysyo waaweyn oo ka imaanaya darafyo kala duwan. culeysyada waxaa la sheegay in intooda badan ay ahaayeen kuwo cajiib ah oo markaasi firdhiye iyo saraakiishu isla ogaayeen si loo soo gabagabeeyo ama loo qaado weeraro culus oo ka dhan ah ciidanka maamulka waqooyi bari. xogtan helayno waxay tilmaamaysaa in maamulka waqooyi bari uu ka digtoon yahay duulaano weyn oo lagu soo qaado iyaga. taa beddelkeedana waxay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo ay doonayaan inay ku soo gabagabeeyaan cid walba oo doonaysa inay maamulkan curdunka ah carqaladayso. go'aanada cajiibka ah ee hadda uu qaatay cabdiqaadir firdhiye ayay dad badan aaminsan yihiin inay yihiin kuwa muddo la sugayey isla markaana xaaladda dab kale ku sii shidi kara sababtoo ah saacadda ka dambaysa waxaa la arki karaa dhacdooyin kala duwan oo darafyo kale ka imaanaya kuwaasoo la sheegay in ay carqaladaynayaan hanaanka maamulka waqooyi bari. khubarada arrimaha la socotaahi waxay leeyihiin dhacdooyinada kala duwan ee ka imaanaya darafyada kala duwan waa kuwa xaaladda dab ku sii shidaya isla markaana xasarad ku sii kicinaya sababtoo ah hadda waxaa la arki karaa cabdiqaadir firdhiye iyo saraakiisha oo dab kala sii shidaya. aaga magaalada Ceergaabo Somaliland ciidamo xoogan ayay halkaas soo dhoobeen. daqiiqad walbana halkaas waxaa laga fili karaa dagaal xoogan iyada oo dhinacyaduna heegan buuxa ay ku kala jiraan. markaad eegtid dhinacyada ayaa sidii u diyaar garoobeen waxaa kugu soo dhacaya in dhinacyadu markan ay ku jiraan loolankii ugu adkaa. Somaliland ciidamo ayay keentay Ceergaabo, warsangeligu ciidamo ayay keeneen, waqooyi bari ciidamo ayay keeneen. dhinacyadu dhanna markaad isku keentid waxa aad ku tusinaysaa xaajadu inay hadda marayso meel aan waxba laga qaban karin oo xaajadu ay tagtay meel allow saal ah iyada oo saacadda ka dambeysana la filan karo isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah oo ka imaanaya darafyo kala duwan kuwaas oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda uga sii dari karaan xaaladana ay dab ku ridi karaan iyada oo saacadda ka dambeysana la filan karo isku horimaadyo halkaasi ka dhaca. waxay ku soo kordhaween arki doonaa ha yeeshee bal markan aan wax yar idiin maqashiiyo xubno ka mida odayaal iyo saraakiil ku hanjabaya inay Ceergaabo amnigeeda ka qayb qaadanayaan oo ay sugayaan. قولنا لي أحمد عرقابه ويسويته أنا وسويه عرو لي أحمد والدولة وغوي بري حدي الدولة يسبينا حلول لسه يسيب لي أحمد وغوي بري بعض الصور مرسا أنت هتفصو أنت لما أنا دولة بعتهاي أنا دولة بعنهاي عالم بعلنهاي أنا عالم بعلنهاي إن عرقابه نسوي سوا الله ولا كان مرمال لكن أنا قاعد مهوس عرقابه كل يوم ما يروح فيه وأنا عذر وقرايسا والله علوك هو ريجي يميل على حكم شرينه إنه حقيقة وجهه بقول أنت وديجي صلاح الله سجد نقطة إسكحرينه وأفر بقول محابس على أسعار في حرم طيب فكره هو تسمعنا ويسويسه ما موسى ورئيسي لو ما قرأ والله أصلا ما قال يا سبحان الله يوحي دويت الاعتراف لو ده قوت على واصل موسى ورئيسه يقول الله يضم وحمد قراطاه مصطفى إلى لا يحمد بين سوقنا أنا قاعد نسوق هنا نبغى سامو موسى إسماعيل بده يسافر وتاي عدة دوم تهوتي لا لما دارود كذا شنو هتيما أما لما تقولي يعني قوة دقيقنا وقوة ضاقنا أنا يقول مدح بنان أنا أقول مدح بنان أما هو يسكت لنا وقرار ثاني فقع مهورس فوقي مرجع يقول يا نوعانتين هي خيامه مني وحال فوقي من وقرنا يساع عدة أنا بس أنا هاي ماشي رصعنا ما مضلنا هاي وقت هم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسلام يا أمة الصومالية ميل كتب. وحسلام يا دولة وقوي بري مدحوينها وقوي بري مدحوين كحجيكا. هل كان شركة يجا شراي كحدا غيا هاي مالته وانوكاه وينا. مقالة اللي يعطون الله حقه وقبل كسنة كترسن.
waxaanu leenahay inaanu ciro laba kelmadood bugashi naalaye axmed inaan laba kelmadood nidhaaho labada kelmadood oo ah cirow naalaye axmed waa dowladda waqooyi bari haddii aad doonaysid inaad xidhiir la samaysid naalaye axmed waqooyi bari baad usoo maraysaa intaa qabso inta labaad adna dowlad baad tahay annana dowlad baanu nahay calan baan leenahay annana calan baanu leenahay ninku inuu calankiisa aaminaa wanaagsan laakiin annagu waxaanu nahay dowladda la yidhahdo waqooyi bari iyadaad la xidhiidhaysaa haddii aad taa diidid waxaa xeer noo addii xabad gobolka sanaag xabad baanu ku imanaynaa qodobka labaad haddii aad sidaa gaarraxyo oo kale aad ugoshahayne calankayagaan dhinacayga ka taagan midna dhinacaaga ka taag laakiin naalaye axmed waxba ha kala xadin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim waa salaamaya ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka mahadna ilaahay ba iskale intaa markaan ka gudbo halkanaanu joognaa waa damalaxgare waa gobolka sanaag annaguna naalaye axmed baanu nahay ujeedadayada shirkanna wuxuu ku iyo kalaamka wuxuu ku saabsan yahay arrimo yaryar oo sanaag ka dhacaya inaanu qaarkood ka jawaabno wax ka nidhaahno taasoo ay ka mid tahay odaygii ciro uu ka hadlayey naalaye axmeda weydi sugayaa sanaag weydi sugaysaa arrimaha ba ugu waaweyn marka ciro waxaanu leenahay kuma qusayso meesha la yidhaahdo sanaag xarakamatii nimanka muuse ismaaciil annagu waxaanu nahay naalaye axmed waxaanu joognaa meesha la yidhaahdo dhib qarax 30 kilomitir baa ay noo jirtaa inta naga maqan waa 30 kilomitir 30 kilomitir niman muuse ismaaciil la yidhaahdo naga dhaxaysa iyagaanu ka wada hadlaynaa ama nabadgelyaanu ku wada tegaynaa oo ku qaybsanaynaa dhulka iyagoo ku wada degaynaa ama nabadgelyaanu ku wada degaynaa oo ku wada daaqaynaa annagoo iyaguna madax bannaan annaguna madax bannaan ama way isku diraynaa oo u kala adkaanayn muuse ismaaciil madaysaaq way wataa iyo cidday doonto ha wateen annana niman daaruud ka dhashay oo hantiimaado adigana waxaan ku leenahay annagoo maanta dowlad leh oo dowlad baan leh oo madaxweyne leh oo tol leh oo midnimo leh oo calan leh oo dastuur leh oo baarlamaan leh oo dowladdii soomaaliya ka tirsan annaga waxa weeyaan wax khasaara warayo waxaan ku leeyahay ha ku khasaaroobino howlgallada ma lacagtaas ka siirayso iyo hadalkay kuu sheegay hadalkaa waxaan soo faray waan la leehay howlgallo iyo dad wax magarataa aan soo faray naalaye axmed baynu sugaynaa annaga hanayna sugin hanayna ku khasaaroobo ciro hadalkiisa intaasaan kaga gudbayaa qodob labaadna waxaan ugu